Asalaamu calaykum asxaabteeda qaaliga soo dhawaada insha Allah waxaan videoga idin kula wadaagi doonaa si yar oo simple ah oo qolkaaga jiifka u sameysan kartid haddii uu qolka uu yahay qol yar uga dhigi kartid qol yar oo weyn. Midabka ugu muhiimsan qolka jiifka waxaa wanaagsan haddii uu qolka yar yahay inaa ka dhigtid kalar cadaan ah. Kalarka cadka ah qolka jiifka wuxuu ka dhigayaa in uu weyn yahay isla markaana uu u muuqdo qol weyn. Sariirta aan hadda meeshan soo dhiganayno waxaa waaye kalarkeeda gareey. Hadda waxaa cabiraneynaa daaha dhererkiisa. Waxaa qurux badan daaha in lagu xiro meesha ugu koreyso oo derbiga. Kalarka daaha aan adeegsanayno waxaa waaye cadaan iyo madow maadaama uu yahay jiifkeena gareey iyo cad. Daahyadii waa soo xiranay, sariirtiina waa soo rakibanay. Sariirtan waxaa waaye sariir dalka lagu sameeyay ma aha sariir original oo dibadahaas laga keenay. Inaa waxyaabaha dalkeena yaalo ee lagu sameeyo horumarino isla markaana aan ku faano ayaa qurux badan inta aan waxyaabo shisheeye aan soo qaadan lahayn oo gadan lahayn. Wixii wadankaaga yaalo ayagoo la qurxiyay la farsameeyay ayaa ka fiican mar walba 100%. Tooleedka waxaa waaye miyaaradda derbiga kaligiisa ku dhigan tahay iskuma dhigno miiska. Asna waxaa waaye wax yar oo gareeya geesaha kaga dhigan miiskaas yarna wuu wataa. Sidoo kale armaajada ayadana waxaa waaye 4 albaab waa aad u yar tahay. Korna ayadana gareey yar kaga dhigan. Daahyadiina waa noo rakibay. Waxaan rabnaa hadda marka insha Allah inaan sariirta u wareegsano. Sariirta waxaa fiican mar walbo in ay leedahay dufeed ama bahalkaas maxaa la dhahaa bustaha. Waxay ka dhigaysaa qofka inuu si raaxo ku dareemo isla markaana suuf uu ku dareemo. Hadba ka helaysid go'ya hadda ku googlaaya go'a asna adeegsanaya waxaa waaye gareey. Waxaa wax dhan inay soo maaj gareeyaan. Gareey yara iftiimaayo waaye. Miiska ay koomadiinada waxaa u adeegsan doonaa insha Allah nalal hadda helaysid waxaa adeegsan kartaa ubax nalka laftirkiisa asna gareey waaye ama qalin. Sidoo kale waxaa sameynaynaa sariirta dufeed iyo 4 barkin u adeegsan doonaa. Hadda barkimo ma saarno go'ya ku googulna waaye 4 barkimo iyo ka badan waa adeegsan kartaa laakiin meesha ugu yar waxaa waa 4 barkimood inaa adeegsatid sariirtaada yani saartid. Ka badanna waa adeegsan kartaa 6 xabo ama kuwa yaryarna waa ku buuxsan kartaa. Mar walba sariirta barkimo badan tahay mar walba qurux badan tahay. Dufeedka ayaa had saaraya ama bustaha korka laga saarto. Wax yar ayaan gees ka soo laabay si loo arko yani barkimaha labada hore iyo go'a korka saaran inay isku eg yihiin. Waxaa laga yaabaa dad badan inay hadda isweydiinayaan kuleela lagu jiraa bustahan korka la saaranahay maxaa lagu falaa laakiin wuxuu ka caawinayaa qurux. Markuu qabow jirna waa adeegsan kartaa. Miiska tooleedka waxaa u adeegsataa wax yar oo simple ah ayadana kama badinayno saxankaas yarka cadka ah. Waxaa saareynaa wixii catar barfuun heli kartid ama haysatid markaas. Cafishka badan tooleedka ma ku fiicno iyo waxyaabo badan dadka qaar waxay saartaan xitaa caagadaha maxaa la sunta guryaha lagu buufiyo iyo waxaas oo dhan munaasab ma ku ahan. Sidaas darteed sariirta waa tasaa nalalkaas yar geesaha ka saaran. Go'i waa kaasa daahina waa u jeedin. Mutuleelka waxaa ku soo hiro dhulka mutuleelkiisu waa cad yahay uma baahna wax in la saaro laakiin waxaa sameysanaynaa room yariiskas saarayna. Roomigana waa kaasa waa madow iyo jaalo yar. Jaalaha yar iyo go'a sariirta saaran jaalaha yar oo ku jiro ismaaj gareynayaan. Daahyada iyo madow ku jiran ayadan sidoo kale isku maaj gareynayaan. Waana wax yariis oo aad aan u weyneyn oo yariis aad sariirta iyo armaajada dhexdooda saaran. Waxaan rajeynayaa marka inaa si fiican oo wanaagsan aad u fahamteen. Wax weyn hadda sameey ma lahan laakiin wuxuu u muuqdaa wax yar oo iska qurux badan. Howl badan oo la geliyay kama muuqdo. Gabar walba oo gurigeeda joogto yani mar walba oo waxyaabaha qolka ay ku yar yihiin ama alaabaha ay ku yar yihiin mar walba quruxdiisa ay soo baxdo. Aad u mahadsantihiin daawashada muuqaalka. Waxaan rajeynayaa inaad si fiican uga bogateen.
maadaama ramadaan ay tahayna shaqo badan lama geli karo, wax badan lama sameyn karo, suuqa lama soo wareegi karo. sidaas darteed ayaan videogan usoo gaabiyey waxyaabaha nuxurka leh iyo waxyaabaha muhiimka ahna idinkula wadaagay. mar kale waa idinkaga mahadcelinayaa sida wanaagsan aa ila socotiin. waxaan rajeynayaa in aan insha Allah intaa ka badanba aan kala faa'iideysano. waa mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.